higsi baa la yiraahdaa higsi markaa maxay ku timaaday qaabka maxaa ku dhaliyay samayso waxa igu dhaliyay dhaqanka meesha lagu soo bandhigay in aan garanahay iyo in aan anagu wadnay iyo in kale iga maqnayd meesha ka helay markaan arkay horta higsi waa daba joog qofkaas uu higsanaya hanku waxaad higsataa markaad yarayd inaad weynaato nin ragga barbaarta kusoo darmatid baad higsanaysay markaad weynaatidna inaad wax qabsatid baad higsanaysaa marka higsigu waa dabagalka dhaqankayga iska daba jooggiisa ah markaan arkay dhaqankii أنا نقل يقان الزلمة ما دام كوح عن كتر سنة نقل كي كل حجيره أنت بدن ويقول بحضر مقع عبد الولي الصومالي دوان اسمها هذين كذا مركز هذا ماشي ما ذبح عن كي دقن أنا أقول وهذا نقل كي جاء القروح بدن سأسوي قد بكل على تماصين صوب ما سيد هذه إلى لو ذاقين وتحت قد كجبا كان كسب بيجي وحي لي مركز هكبسي قد تلعبضة مركز هود كتير هاي في ده هيجا أنا جوان أقول سان كهيل الدهنو hinqashada haloosiga banaan haybta iyo luuqda dhaqankayga waan haybin jiray mana hungoobayne anigoo hikaadii ka go'aysan iskugu haystay waxa ii hawaawuray hadana hoyga dhaqankeena abu jaamac ii hiliyo waa habayaaye hal abuur murtida hayb uu ugu haleeyaay wixii aan in dheer hiran jiraan maanta helayaaye hidahayga kama faanayo waan huwanayaaye waxaan hayb wadaagnaa intii faraska heensaysa faraska heensaynta waa taqaanaa ma فرس كمركي الله بيارنا يو كورها كوري lagu علشان waa gurada lagu fuulo waxaan hayb wadaagna intii faras ka heensaysa waxaan heel ka filayaa intii awr ka heeriyaysa habla waxaan u haystaa kuwii dhiisha heemaardu waa tirida dhiisha tirideed marka heemaar afka yar ugu dambeeyo baa la dhahaa heemaar marka laakiin tiridii bay ka macno tahay habla waxaan u haystaa kuwii dhiisha heemaara hidahayga waan hiifayaa kii holaan celine baadidiisa waan hiifayaa kii helaan celine hambaliya salaam baan u hayn kuwa ku hawloone abu jaamac kii soo hirtay heli dadaalkiisa hidahayga hambadayda kama faanaya yaa heshiiskeena Soomaalay allow yaan halayn dhaqanka aan hayno hirwad iyo ciyaaraha allow dhaanta yaa hoorsha yaan kala hanjabin dhaadashada lagu hadaaqay intaas yar taxaas yar gaaban bay ahayd runtii aan muhiimada markaas aan soo qaatay waxa ahayd labada eray ee ugu dambaysa ee ahayd Soomaalay allow yaan halayn dhaqanka aan hayn hirwad iyo ciyaaraha allow dhaanta yaa hoorsha hirwad waa ciyaartii marka fiirsa ciyaaraha miyiga laga dheelo intooda badan ay ka soo farcameen dhaantaha noqoto wal saqano waa ciyaartii ka soo farcameen allow dhaanta yaa hoorsha wixii yaan kala hanjabin dhaadashada lagu hadaaqay Soomaali meel walba adduunka uga nooshahay dunidan kala afka waxa ka dhaxeeya waa diinta iyo dhaqanka iyo luqadda afka ay wada isticmaalaan marka intaas baan ku leenahay aan isku leenahay ku walaalowne yaan kala hanjabin dhaadashada lagu hadaaqayo